بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بقى محله ما أنت بيش طايل لا بيلعب تنكي بيش كتولاد وعن رنتي ألقى ما أنت كهم بليانيا لما شعب رئيس المال ميري شوغانبا أنا وهم بليانيا سيدي شرفت بالنيد والتنيد الحيد قيمها الحيد أي بنا بحيد دارين كوكو موجينين حسبية قرنكا أيو كل موجينين أي تقراشها الحيد رنتي أي أنكو صورنا ما يسناي إسلام مركانا كل عذيين صدق يتوم بيجيكوا تبناد سي شرف له ورت إسقاط سلهين ونبت قليعة هذه أدبارت الشعب الرئيس ما لهم مهندقيا وهكذا مهندقي ومهندقيا قدي الدروشين كقرنكا ورنتي هول عدق سواء قبتي مدرن هاوشن كسو شقيني كل جوليستين ما تاي إن الدورشان النحورة أو حلقة قبطان وهكذا رنتي هذا هالك كان بلينيا لما نعيد مذاك الدول أمني السويي والمانتا إلهي مهدي إلهي مهدي إلهي كسكو إنه مانتا إنه هاي نم هدا ينقل ذا كسو يكون عليه تورشدي إنه قبصونتي أي سوين أما دال بدن قليين لراري هبنوسو جيدين رنتي إنه عليه جزاكم الله خير إذا كان أذية إذا مذاك الدول أمني كان أذية ما رنتيهم بلينيا وعليه ما أنت سمعنا مقولة ستي قف قاري مقوليسن doorashada noo qabsoontay waxay noqotay wax maanta daafaca caalamka ka dhacay oo magaciisa Soomaaliland kor u qaaday wax badan maanta soo dhaweyn doonta insha Allah qadiyadeena iyo maartay himiladeena aan ku taameynay waxaan arkaa calaf iyo marwalba cidii Allah meesha keenayo calaf way ku timaadaa hadii Ilaahay ka dhigay calafkiina aniga iyo walaalkay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi in taladii dalka maanta shacabka reer Soomaaliland majority noogu codeeyeen waxaan ka cadeynayaa in maanta aan dhammaan boqolkiiba boqol maanta madaxweyne wada nahay mas'uuliyadda anagana waa saaran tahay kana shaqayn doono wadajirka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland sidii maartay isku soo dhawaan lahaayeen wixii ay beertay xadaafirtii ama kala duwanaashii ay beertay muddadii tartanka lagu jirayna waxaan rajaynayaa in halka inaga baatay shalay inaga dhanyahay markii natiijada soo baxday waxaan balan qaadanayaa inaan ummadda ugu adeegno cadaalad iyo sinaan oo sida dastuurkuna u dhigayo in muwaadin kasta xaq uu leeyahay aan la duusi karin anaan maanta cid gaara anaan madaxweynaha ummadda reer Soomaaliland maanta madaxweynahay waxaad leeyahay ummadda reer Soomaaliland horumarka iyo maartay iyo maartay wadajirka aynu ku naaloonayno la'aantiin ma qaban karno haddii maartay nagala shaqaynin waxaan shacabka reer Soomaaliland ka codsaynaa in maartay xilka aan qaadnay ay nagu garab galaan ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay nagu garab galo idinkuna maartay aad noqotaan shacbi nagala hawlgala si aynu yoolkii aynu higsanaynay oo ah kow horumar iyo nolosha nolol maanta marba nolosha aan taagan nolol dhaantay inaan gaadhno inaan maartay ka mid noqono qaramada caalamka inaan ka mid noqono taasina la'aantiin ummadda reer Soomaaliland meel ay joogtaba haddii dibadda joogtay haddii gudaha joogtaba haddii aan nagala shaqaynin farkii fooma dhaqan Soomaaliland waxaan kali madaxweyne ku-xigeen iyo team wasiiro bari la magacaabi doona ay kaliya qaban karaan maaha waxaan wax ku wada qaban karnaa inagoo wada jira wada hedlana in maanta ummadda in isku keeno aan horumar kale ka shaqeyno anaga waxaan naga ballanay si aan ku qornay buugga barnaamijkayga xisbiga ku cad in Ilaahay hortii waxay ku ballan qaadanay in aan ku fulin doono insha Allah oo aan rajeynayno Ilaahay nagu garab galo in maartay aan isbedelada aan sheegnay aan kaga dhabayn doono aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel ay joogaan miyi magaalo iyo intii hawsha maanta inoo dhamaatay kullu lahayd oo dhan iyo international partnerski ama beeshii caalamka runtii ay nagala shaqaysay maanta hawsha ay nala suura gelisay inay nagu garab taagneed sidii nidaam dimuqraadiya oo xoro xalaalan maartay aynu isku dooran lahayn iyagana beeshii caalamkana aad iyo aad baan saaxiibadeena dawladaha nagala shaqeynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaya waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqayaa dhammaan صاحبنا لا تتبع أصحابتي معارفك
oo runtii si sharafa u soo tartamay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo Faysal Cali labadana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa guusheeduna ma suuro gasheen haddayna maartay aynaan tartan xalaal wada gelin oo la isbarbar joogin aad iyo aad baan runtii ugu hambalyahay dhammaan mucaaradka iyo gaar ahaan taageerayaashii kulmiyaan ee sida gaarka noogu doortay ama noogu codeeyay aad iyo aad baan maartay u gaar ugu mahadnaqayaa waxaan runtii mahadnaq gaar u gudbinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo runtii maanta ku guuleystay in doorashada xor ee xalaal qabto asaasi xisbiga kulmiye ahaa annaga iyo madaxweynaha la doortayna maanta noo doortay in anagu isagu hawshii soo bilaabay in anagu aan bedelno oo halka sii wadno noo doortay runtii aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa ilaahay waxaan la cibriisa ha raajiyo caafimaadkana la u daayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu